ay u kala badan yihiin magaalada Muqdisho oo dabcan la filayay una bulsho badan ayaa boqolkiiba 28 tirkoobku sheegaya in businessadu ay ka furan yihiin waxa ku xigta magaalada Hargeysa oo ah boqolkiiba 18 magaalada Boosaaso waxa weeyaan boqolkiiba 11 hadii lagu mataqaana chartigan afiirsan labada magaalo ku xigta waxay noqonaysaa magaalada Gaalkacyo oo boqolkiiba 10 ah iyo magaalada Burco oo ah boqolkiiba 7 6.8 roughly marka shantaas magaalo ayaa business establishment tiga tirkoobku lagu sameeyay ugu badan Soomaaliya marka laga hadlayo magaalooyinka iyo dadka ka shaqeeya corporate report ku faahfaahsan yahay ilaa 300 oo qof ku dhow ayaa Soomaaliya oo dhan shirkadahaas u shaqeeya tirkoobku lagu sameeyay laakiin meesha ugu badan oo shaqaaluhu joogaan 44,000 waa magaalada Muqdisho waxa ku soo xigta magaalada Hargeysa 22,765 iyo gobolka mataqaana magaalada Boosaaso 13,000 waxaa kaloo tirkoobku ku ogaanay in marka laga hadlayo dumarka ee ragga meesha loo kala badan yahay formal iyo informal sector-ka oo aan ku hadalnay oo 91,000 oo establishment ay mataqaana laga diiwaan geliyay boqolkiiba 66 rag ayaa haysta inta kalena dumar weeye laakiin surprisingly waxa ayadana soo baxday in kabarada aan business yarka ah boqolkiiba 70 ay gabdho joogaan marka shaqeeyaan halka waxay tusaysaa siyaasad ahaan in sector-ka ganacsiga Soomaaliya formally informal marka laga hadlayo uu yahay male dominant uu yahay oo gabdhuhu mataqaana ay runtii ku yirihiin ugu dambeyn meelahan mataqaana tirkoobkan waxaan ka qaadan karnaa waxaan ka qaadan karnaa in ay naga caawinayso in aanu hadda wixii ka dambeeya sahanada soo socda sahanka business survey soo socda aanu estimation ku sameyn doono GDP by production oo muddo dheer la sugayay wax soo saarka ku saleysan mataqaana dhaqaalaha Soomaaliya iyo in la helo diiwaanka ganacsiga Soomaaliya taas kala business register in aanu business survey soo socdana maadaama population ka haysano tirkoobkii oo dhan haysano sample ba ka doonan doonaa hadii ilaahay mustaqbalka si aanu kaga soo kala baxno sample representative oo ka turjumaya ganacsiyada tirkoobka lagu sameeyay waxa kaloo iyadana muhiim u ah sector-kan tirkoobku maartay faa'iido u yeelan doona in uu xog siiyo dadka raba inay wadanka Soomaaliya maal gashtaan hadday aan lahayd meelaha ay xoog saarayaan oo kale sida manufacturing oo kale boqolkiiba 3 meelaha dhiman oo kale inay xoog saaraan oo maalgelinta Soomaaliya hatta ay halka maartay la heli karo laga heli karo in mataqaana hagitaan lagu sameeyo sidoo kale mataqaana ugu dambeyntii in aanu ugu faa'iideysan doono sahankan in data utilization tirkoobka iyo sahanka ku xigaba kor loo qaado isticmaalka data taas oo ka soo bixi doonto talooyin wax ku ool ah dawladda Soomaaliya in baarayaasha ardayda jaamacadaha international partners kana la joogo nala shaqeeya taas markuu wixii keeni doontaa inaanu u soconno u jiheysannahay inaanu noqono dad Soomaali ah oo wax ku beesgareeya xaqiiqda iyo factiska taasoo ah war la helaa baa la tala la helaa waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh